kulan wanaagsan ku soo dhawaada muuqaal cusub waxaad naga daawanaysaan channelka Salma Vlog and Entertainment maantana qaybta qosolka iyo qaraaxada waxaan idin haynaa qodobo aan isleenahay daawadayaashiina waa ay ku qaraaxaysan doonaan waxaana kamid ah nin caqli badan oo si fudud ku guursaday gabar tartan haasaawe ay kula jireen 3 nin oo kale aabaheed ayaa xujo hor dhigay 3 nin sida uu ninkaas dhalinyaro kaartada isticmaalay ayaan idin haynaa waxaad kaloo daawan doontaan taariikh ku dhacday oday mirqaamay oo meel marfisha isaga oo jooga ay kaadi qabatay meeshuu maraba iftiin ayaa la daba dhigay markaas iyo wixii kala qabsaday dadkii marfishka ay ku qayilayeen ayaa uu ka waramay jamaaco masjid ku tukanaysay oo arrin la yaab leh kala kulmay nin kabiisi laga xaday iyo reer miida meerkiisii magaalada ka soo raadiyay iyo sheekada dhex martay lamaanihii uu u martiyay oo aad iyadana u xiiso badan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar si aad ula socoto muuqaalada xiga insha Allah magacaygu waa Xasan Xayi Cabdullaahi inta aanan u gudbin qodobadaas iyo qosol iyo qaraaxo waxaan ka hormarinaynaa mid kamid ah qasiidooyinka nabi amaanka maadaama aan ku guda jirno bisha barakaysan ee ramadaanta يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا رمضان كفليس يا ربيو رحمتك نقصي يا ربيو سيدرنا داوغ يا رحمنكو رب العالمين كو رالي نغنقو يا ربي يا رحمن رمضان كفليس يا ربيو رحمتك نقصي يا ربيو سيدرنا داوغ يا رحمنكو رب العالمين كو رالي نغنقو يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا رمضان كفليس يا ربيو رزقنا واسع يا ربيو رب تصنع وافجي الرحمن كو رب العالمين كو رالي نغنقو يا ربي يا رحمن رمضان كفليس يا ربيو رزقنا واسع يا ربيو رب تصنع وافجي الرحمن كو رب العالمين كو رالي نغنقو يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا رمضان كفليس يا ربيو ربي الروحنا وسي يا ربيو رجح من كور يا رحمن كو رب العالمين كو رالينا غنقو يا ربي يا رحمن رمضان كفليس يا ربيو ربي الروحنا وسي يا ربيو رجح من كور يا رحمن كو رب العالمين كو رالينا غنقو يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا رمضان كفليس يا ربيو نغر بوارا يا ربيو ريادنا نورمي يا رحمن كو رب العالمين كو رالينا غنقو يا ربي
يا رحمن رمضان كفليس يا ربيو نغرب وارا يا ربيو رياضنا نورمي يا رحمن كو رب العالمين كو رالنا نقو يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن يا ربي يا ربي يا رحيم يا ربي راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا راليها شهادا ربنا hagaaga daawadayaal salma falog ayaad nagala socotaane aan ku bilowno sheekooyinkii iyo qosol iyo qaraaxo waxaa inta badan jira sheekooyin mala awaalo ah oo dadka qaar ay rumaystaan hase ahaatee tani waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ay dadka qaar ku sheegeen in ay 60% run tahay 3 nin ayaa gabar joog iyo jamaal ilaahay u dhameeyay waxa ay haasaawe ay la galeen kadib ay tiri mid walibana uu ku yiri waxaan rabaa inaan isguursanno markaas ayay tiri aabahay bal u taga saddexdoodii oo wada socda ayaa aabaheed gabadhii u tagay mid walibana wuxuu yiri adeerow gabadhaada ayaan rabaa markaas ayaa xujo la hordhigay waxa la yiri quraanka ma taqaanaan saddexdii nin markaas ayaa nin oday ahaa markii koobaad la yiri haa buu yiri waxa la yiri suuratul a'raaf ka bax suuratul a'raaf ayuu inta bilowga ka bilaabay ayuu dhameeyay waana uu ka baxay halkaas ii joog baa la yiri kii labaad ayaa la weydiiyay haye adigana waa oday kale ayuu isagana ahaa laba oday iyo waliba wiil dhalinyaro ah ayaa gabadha ku tartamayay haasaawe la galay ama shukaansiga balse aabaheed ayaa xujo hordhigay markaas ayaa waxa la yiri magaca hebel suuratul anfaal ka bax isagiina waaba kaas oo dabada u qabtay waa uu ka baxay wiilkii ayaa maaragtay la yiri magaca yaasiin ayaa la yiraahdaa buu yiri haye waxa la yiri ma taqaanaha la yiri quraanka haa suuratul iqlaas ka baxa la yiri waaba kan isaga u fududaataba dabada ayuu u qabtay markaas ayaa gabadhii aabaheed wuxuu ku daray wiilkii yaasiin ahaa sidaas ayaana loogu aqalgeeyay odayaashii way xanaaqeen waxay yiraahdeen sidee ku dhacday in maaragtay ninkan gabadha oo aad noogala jeclaysataan markaas ayaa ay yiraahdeen aabaheed ayaa yiri waxa uu wiilkan ku helay magaciisa maadaama yaasiin uu ahaa been buu ka sheegay horta yaasiin lama dhahayn laakiin qul wallana waa mataqaanaa la yiri suuratul iqlaas haa buu yiri sidii buu uga baxay gabadhiina wiilka ayay aad u rabtay oo dhalinyaranimo ay isla ahaayeen labada oday sidii baa marka cirka loogu fiiriyay waahaga sheekada kale ayaan u gudbeynaa ee qaybta qosol iyo qaraaxo ninbaa maalin masaajid galay wuxuu ku wareeray salaada markii laga baxay halka uu dhigtay kabihiisii wuxuu moodayay in laga xaday markuu in badan raadiyay ayuu ku wareeray oo uu inta istaagay meesha mambarka oo khudbada uu ka akhriyo qofka qadiibka salaadaha khudbada ayaa masaajidada dadka tagay yaqaanaane ayuu cod dheer ku yiri yaa jamaaca kabahigii meel ku sheega ama waxaan samayn doonaa falkii uu aabahay bari sameeyay mid lamida dadkii cid u jawaabtaba muusan arag haddana mar labaad ayuu soo raadiyay oo kabihiisii wuxuu isiri bal xasuuso meeshaad dhigtay in maaragt haddana wuu soo waayay wuu ku celiyay mar labaad yaa jamaaca kabahayga halla isiiyo ama meel ku sheega ama waxaan samayn doonaa falkii aabahay uu sameeyay mid lamida dadkii ayaa inta ay la yaabeen ayaa qof kamida inta baxay uu kaba u soo iibiyay kaba dacaysa oo dukaan uga soo iibiyay baa la siiyay ninkii laakiin
isxilqaamkaas ay sameeyeen jamaacadii ka soke waxaa la weydiiyey warniyow maxay ahayd alla aabbaha muxuu sameeyey adigana dhahaye falkii aabbahay uu sameeyey oo kalaan samayn doonaa haddaan kabahayga la isiinine muxuu ahaa alla aabbaha kabahu maaragtay marka laga xaday muxuu sameeyey markaas ayuu yidhi aabbahay wuxuu sameeyey markii kabaha uu waayey isagoo kaba la'aana ayuu baxay sidaas ayaa anigana aan samayn lahaa buu yidhi waa tahay daawadayaal Salma Vlog ayaad weli la socotaan bal markana aan fiirino qaybta kale ninbaa beri meel merfish waxaa la lahaa meelaha ay ragga ku qayilaan markaas ayaa waxa la yiri meesha maqaaxida ama merfishkaas waxa iska lahayd gabar isaga uu dhalay markuu gaaray mirqaamkii ayaa ay kaadi qabatay baa la yiri sheekadan waxa nala wadaagay qaar kamid ah dhalinyarada markaasuu ku qayla dhaamiyay naaxaliimoy caagada biyo yar igu soo shub gabadhiina inta ay ugu soo shubtay aabaheed ayay u keentay oo ay soo agdhigtay kaaga darane caaga biyaha loogu soo shubay waxa sidoo kale agyaal maadaama habeen ay ahayd tariig ama faynuus qofba sida uu yaqaano meeshii ayaa ay iftiiminaysay tariiga ama faynuusta ninkii wuu soo kacay oo tariigii ama faynuustii ayuuba dhegta soo qabsadaba isagoo u maleeya inuu caagii biyaha loogu soo shubay ugu jira waxaa arkay dadkii ay wada qayilayeen ee meesha fadhiyey ninkii ayaa waxa meeshii uu tagaba iftiin ileen waxaa waaye faynuusta qof wata ma meel mugdi noqonays iftiin wuu yaabay wuu soo laabtay weli waa qof maaragtay marqaansane kaadidii isagoo hayso haddana ku soo laabtay markaasoo meesha dadka jooga wuxuu ku yidhi war ileentanoo kale dowladda hoose meel walbaba leer ayay ku xirtay oo iftiin saa'id ah ayaan dareemay oo anigiyo maaragtay ka soo xaaji gudan waaye marka mararka qaarkood mirqaanka iyo sheekooyinka laga dhaxlo ayaa ay qayb ka tahay ayuu noo sheegay qofka sheekadaas nala wadaaga waana mahadsan yahay qaybta ugu dambaysa qosol iyo qaraaxana waxay tahay hadda ka hor ayaa nin reer baadiye ah ama reer miya waxa uu dameer ka dhumay suu u raadinayay wuxuu yimid meel yar oo magaalo ahayd markii magaaladii uu yimid oo la soo dhaweeyey ayaa la yiri warniyow soo qabayso sariirtaas lagu hagaajiyey ee caawa seexo si berri aad u baxdid ninkii uu soo qabaystay sariirtii ayuu ku seexays yiri inta sariirtii uu dul yimid ayuu yiri magaalo kibir weyna waayo ma anaa wax iruxaya ku seexan kara ileen sariirta waa dhaqdhaqaaqaysaay ninka maadaama reer miyi uu ahaa markaasuu sariirtii hoosteeda galay oo uu seexday ninkii guriga martida uu ugu ahaa ninkaas reer baadiyaha ahaa ayaa soo galay qolkii duqii xaafadda wuxuu markaas ka waayey sariirtii ninkii ileen sariirta hoosteedooba ku jiraayey markaas ayuu naagtiisii ama xaaskiisii u yeeray si ay qolka u hagaajiso markaas ayay xaaskiisii iyo isagii oo qolka ku jira ayuu yidhi erayo jacayla oo maaragtay maxabo ku abuuraya saaxiibtiis markaasuu ku yidhi xabiibi ama macaan badaney ama beybi adduunkan dhan waxaa ii muuqda ayaan kaa dhex arkaa markaas ayaa ninkii reer baadiyaha ahaa oo sariirta ku hoos jiray waxa uu yidhi warniyo haddaaba adduunka waxa ka muuqdaba aad ka dhex aragtidba anigana ii fiiri bal dameerkaygii meesha uu joogo si maaragtay aan meesha uu joogo kaga raadsado waa sheeko qosol badan runtii gudahanna daawadayaal intaasaynu kusoo gabagabeynaynaa qaybta qosol iyo qaraaxo Salma Vlog and Entertainment ayaad ka daawanayseen inta aan dib dambe isku arki doonno amaana Allah